बच्ची को तकलीफ आ गई साहब, वो बच्ची खाना पानी नहीं बहुत मारना टोना करती है। qoys hindi ah oo degan magaalada Hyderabad ee dalka India ayaa qayladhaan u diray dowladda waddanka Hindiya si loogu soo badbaadiyo gabadhooda oo uu dhibaataynayo nin Soomaali ah oo ku qaba Soomaaliya sida ay qoyskaasi sheegeen. Arrintan ayaa aad u soo shaac baxday maalmihii u dambeeyay oo ay wax ka qoreen inta badan warbaahinta dalka India oo ciwaano kala duwan u sameeyay. sida uu warbaahinta ANI u sheegay Sheekh Haydar Ali oo dhalay gabadhan la yiraahdo Uniza, ninka qaba waxa la yiraahdaa Umar Daahir, muddo 10 sanadood ah oo ay magaalada Hyderabad ku wada noolaayeen. Umar iyo xaaskiisu waxay u guureen Soomaaliya iyagoo watay 4 carruur oo ay dhaleen. Aabbaha dhalay gabadhan wuxuu intaasi ku daray in Umar uu gabadhiisa guursaday sanadii 2008 mar uu waxbarasho u joogay magaalada Chennai ee dalka India. wuxuuna ninkan Soomaaliyeed ee qaba gabadhan Hindida ah bishii Abriil ee sanadii 2017 wuxuu xaaskiisa ula guuray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kadib 10 sano oo ay deganayeen magaalada Hyderabad ee dalka India. Sheekh Haydar Ali oo ah aabbaha dhalay gabadha la yiraahdo Uniza isagoo ka hadlaya xaaladda gabadhiisa waxa uu yiri मेरा नाम शेख हैदर अली है। मैं एक गरीब आदमी हूँ साहब, गरीब आदमी हूँ। ये लोग तालीम हासिल करने आए थे। ये मेरे दामाद है उमर बोलिए, तालीम हासिल करने आके kadib markii uu Muqdisho tagay wuxuu Umar guursaday gabar kale kadibna wuxuu bilaabay inuu gabadhayda Unisa garaaco marar badan. muddo kadibna waxa gabadhaydii iyo 5 carruurta ahaydba loo kaxeeyay Puntland, gaar ahaan degmada Goldogob oo ay degan yihiin waalidka ninka qaba gabadhayda Uniza. aabbaha dhalay gabadhan la sheegay inay ku dhibaatoonayso Soomaaliya ayaa intaas ku daray in ninka Soomaaliyeed ee gabadhiisa qaba uu xaaskiisa labaad hadda magaalada Xamar kula nool yahay, halka ay gabadhiisa Unisa ku silcayso magaalada Goldogob iyadoo aan la siin biil macquul ah oo ay ku noolaan karto, isla markaana ay iska ooyeyso markasta oo ay soo wacdo. wuxuuna aabbahani dowladda Hindiya ka codsaday in loo soo badbaadiyo gabadhiisa iyo carruurteeda. wuxuu intaas ku daray in gabadhiisa Unisa ay la soo hadashay marar kala duwan ayna u sheegtay in xaalkeeda nololeed uu aad u adag yahay oo xitaa dadka kale ay afxumo kala kulanto, isla markaana aanay haysan cunto iyo daruuriyaad ku filan. Sheekh Haydar Ali oo ah aabbaha dhalay gabadhan ayaa arrintan uga warramay warbaahinta INA ee dalka India. dhinaca kalena sida ay qortay warbaahinta kale ee dalka Hindiya, mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Hindiya oo ay cabashada qoyskaasi gaartay ayaa u sheegay qoyska gabadha in arrintan ay kala xaajoonayaan dowladda Soomaaliya oo ay ku wargelinayaan. बच्ची को तकलीफ आ गई साहब, वो बच्ची खाना पानी नहीं बहुत मारना टोना करती है। bishaaro waxaan ugu bishaaraynaynaa macaamiisheena sharafta leh in carwada Tawfiiq ay samaysay qiimo dhimis ballaaran. alaabaha lagu sameeyay qiimo dhimista waxaa ka mid ah qalabka furniture-ka iyo electronics-ka inta lagu jiro 2 bilood ee September iyo October. qalabka furniture-ka ee lagu sameeyay qiimo dhimista waxaa ka mid ah aqalada, fadhiyada, qalabka xafiisyada iyo wixii la mid ah, adigoo oo ka helaya modelo casri ah oo qiimo jaban. qalabka electronics-ka ee qiimo dhimista ballaaran lagu sameeyay waxaa ka mid ah TV-yada ama dhalooyinka noocyadooda casriga ah kuwaas oo leh naqshado badan, waxaana ka mid ah Dewo, normal flat iyo kuwa kale. mobilada gacanta oo qaybo kala duwan ah ayaa iyana qayb ka ah qiimo dhimista. talaagadaha, qasaaladaha, kuukariska iyo wixii la mid ah ayaa iyaguna ka marnayn oo qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyay. wixii faahfaahin ah fadlan kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda.